بسم الله الرحمن الرحيم وعن wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel walba oo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo falanqayn aynu kaga hadli doono guud ahaan gobolka si gaar ahaaneed qaybtan waxaan doonayaa inaan diiradda ku saarno Mareykanka iyo Ruushka saldhigyada ay ku leeyihiin Carabta iyo sida loogu bahdilay qaar ka mid ah madaxda annagoo sawiro iyo cadeymo kula wadaagayno sidoo kale saldhigyada Mareykanka iyo Ruushka ay ku leeyihiin gobolka sidee ula dhaqmaan wadamada Carabta maxay tahay xogta ay ururiyaan si gaar ahaan qodobkan waxaan doonayaa inaan arinta diiradda ku saarno daqiiqadaha soo socda insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal mar kale meel walba oo aad joogtaan like saar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay Marwa Fertility Center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmo la'aanta insha Allah waad ku dawoobi la xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo mahadsanid warbixintan waxay noqotay warbixintii sida weyn loo hadalhayay saacadihii la soo dhaafay sidaa daraadeed waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago labada muuqaal ee hordhaca u ah barnaamijkeena waxa lagu sifeeyaa inay yihiin bahdilka ugu weyn ee lagula kacay madaxda Carabta qaarkood muuqaalka koowaad waa askari Raashiyaan ah oo madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad u diidaya inuu ku socdo dhulkiisa kana daba tallaabsado madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo xilligaasi booqasho ku tagay gudaha dalka Ruushka muuqaalka labaadna waa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr Trump oo amiirka dowladda Qatar uga mahad celinayo in uu isaga ballaariyay saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay dalka Qatar labadaasi muuqaal waxay ahaayeen kuwa loogu hadalhaynta badan yahay laguna tilmaamayay in ay yihiin bahdilkii ugu weynaa haddaba hala yaabin intaas waxa laga yaabaa kuwa kale ay harsan inaad la yaabto waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa warbixin iyo xoga laga yaabay inaad hore u arkin kuna saabsan labada saldhig ee ugu weyn ee Mareykanka iyo Ruushka ay ku leeyihiin dalalka Carabta xitaa waxa lagu tiriyaa inay yihiin kuwa ugu weyn caalamka labadan saldhig waxay calaamad u yihiin tartanka xoogan ee ka dhaxeeya Ruushka iyo Mareykanka sidoo kale waxa inta badan la sheegaa in laga maamulo lagana la socdo dalalka Carabta haddaba ku soo dhawaada sheekada labada saldhig iyo xogaha ku duugan iyo midka iskale saldhigga ugu weyn uguna saameynta badan marka la joogo wadamada gobolka waxaan ku bilaabaynaa saldhigga laga leeyahay dalka Mareykanka saldhiggan wuxuu ku yaalaa dalka Qatar waxa lagu magacaabaa Al Udeyd Air Base waxa kaloo lagu xasuustaa saldhiggan inuu udub dhaxaad u yahay weerarkii Mareykanka iyo xulafadiisa ay ku qaadeen Ciraaq sanadkii 2003 waa halka ay ka duulayeen diyaaradaha dagaalka Mareykanka kuwa Ingiriiska habeen iyo maalin kuwaas oo duqeynaya magaalada Baghdad oo dalka Ciraaq ah iyo magaalooyin kale waxa kaloo lagu sifeeyaa inay xarun ay u tahay arrimaha Carabta iyo Islaamka waxa laga yaabaa in badan aad maqasheen in Qatar ay dhexdhexaadinayso hogaamiyaasha Taliban iyo Mareykanka sidoo kale waxa laga yaabaa inaad maqasheen Dooxa oo martigelinaysa kulan lagu dhexdhexaadinayo saraakiil ka socota Iran iyo Mareykanka amaba xitaa wada hadallada hadda ka soconaya magaalada Dooxa ee u dhaxeeya Xamaas iyo Israa'iil waa dhab in janaalka Al Jazeera uu leeyahay wada hadalladan waxaa dhexdhexaadinaya dowladda Qatar laakiin kaalinta Qatar ma dhaafsiisana martigelinta iyo sida la sheegay wanaajinta iyo soo dhaweynta wafuudda xaqiiqda dhabta ahna waxay tahay in dhammaan kulamadaasi aan soo xusnay ay ka dhaceen saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay gudaha dalka Qatar kaas oo lagu tilmaamay inuu yahay dhul ka mid ah Mareykanka balse ku dhex yaala dalka Qatar sidoo kale magaalada Dooxa kulamo kala duwan ayaa ka dhacay waxayna xukuumadda Dooxa si aan ka gabasho lahayn ee inta badan ugu faantaa in saldhiggani uu yahay saldhigga ugu muhiimsan saldhigyada military ee ku yaala qaliijka waxaase warbixinada iyo xaqiiqooyinka soo baxaya ay sheegayaan in ahmiyadda intaas ay ka weyn tahay inkastoo dowladda Qatar ay tahay dowlad aan wax loo meerinaynin haddana inta badan kulamada waxaa la sheegay in halkaasi ay ka dhacayeen laakiin waxaa kaloo aad ogaataa waxaa jira dagaal u dhaxeeya dowladaha qaliijka laftooda oo warbixintan iyo qaybo badan oo warbixintan ka mid ah waxaa diyaariyey kanaalo laga leeyahay dalkii Sultanka Imaaraadka Carabta iyo Suuriya iyo dowladaha kale ee gobolka laakiin mid kasta waxaan ka soo qaadanaynaa inta nuxurka ah ee xaqiiqda ku saleysan saldhiggan wuxuu ku yaalaa dalka Mareykanka laga leeyahay 30 kilomitir meel dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Dooxa waxaana sidoo kale loo yaqaanaa garoonka Abu Naqla dhismihiisu waxaa la bilaabay 1996 waxaa xilligaasi ku baxay dhaqaale 1 bilyan oo dollar ah marka loo fiiriyo boqorkii hore ee dalka Qatar Sheikh Mohammed bin Khalifa waxay u ahayd riyo kaas oo ahayd sanadkii 1998 meel fagaara inuu ka sheegay inuu ku riyoonayo inuu arkay ilaa 10,000 oo askari oo Amerikaan ah oo ku sugan saldhiggan
weliba uu jeclaan lahaa in weligood ay ku sugnaadaan. waxaana hadalka amiirka lagu shaaciyey war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda dowladda qatar ay ku lahayd magaalada Washington. laakiin xilligaasi Maraykanka uma uusan arkaynin muhiimad sidaasi u weyn inuu u baahan yahay in ciidamo intaasi la eglageeyo dalkaani yar. waa dhab, xilligaasi ciidamada Maraykanka waxay joogeen qaar ka mid ah dalalka Khaliijka wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee dunida, markaasoo Saddam Hussein uu ku duulay dalka Kuwait. ballanqaadkii Dooxa ay u samaysay marka Maraykanka xilligaas waxaa qayb ka ahaa in dowladda qatar ay bixin doonto mushaaraadka ciidanka Maraykanka iyo dhaqaale walba oo ku baxaya marka ay sidaas cagta u soo dhigaan magaalada Dooxa. Maraykankana isla markiiba way soo dhaweeyeen, way aqbaleen soo jeedintii dowladda qatar. waxaana xilligaasi talada aqalka cad hayay madaxweynihii dalka Maraykanka George Walker Bush-kii yaraa, waxaana xilka uu la wareegay isaga oo wata qorshihii uu ugu duuli lahaa dalka Ciraaq. balse waxaa ka soo dhex galay weerarkii 11 Sebtembar iyo duulaankii Afghanistan. Washington markaas waxay u baahatay saldhig militari oo ku yaala Khaliijka, kaas oo udub dhexaad u noqonaya weerarka dalka Ciraaq, gaar ahaan sanadkii 2002 oo Maraykanka uu aad ugu sii baahday saldhigan. waxaana markaasi miiska saarnaa qorshayaasha duulaanka ee dalka Ciraaq, kaas oo bilaabanayay 2003 bishii Maars. wixii markaas ka dambeeyay marka qatar saldhigga cirka ah ee Cubayda lagu magacaabo waxay si rasmi ah ugu wareejisay Maraykanka, gaar ahaan markii ay aragtay diyaaradaha Maraykanka uu ka soo degaya kana sii duulaya gudaha dalkaasi. inkastoo xogaha la xiriira saldhigani military si rasmi aan loo ogaan karaynin oo qarsoodi ay yihiin inta badan, haddana waxaa sugan oo la og yahay ayaa waxay tahay in saldhigga Cubayda lagu magacaabo uu yahay mid ka mid ah saldhigyada ciidanka cirka ee Maraykanka uu ku leeyahay dalka dibadiisa aadka u weyn. sidoo kale waa saldhigga ugu qaalisan maadaama Dooxa ay kafaalo qaaday dhammaan dhaqaalaha ku baxaya mushaaraadka ciidanka iyo horumarinta saldhiggan dhinac walba marka laga eego. kaliya ma aha marka sida aad warbixinada ku arkaysaan, laakiin madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Mr. Trump markii aqalka cad uu ku soo dhaweeyay amiirka dowladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, xitaa markaasi kadib bishii Maars ee la soo dhaafay ee sanadkan, aqalka cad wuxuu soo saaray fariin uu ugu mahadcelinayo dowladda Qatar dib u cusboonaysiinta heshiiska ciidamada Maraykanka ay ku sii joogayaan saldhigga Cubayda ilaa waqti aanan la cayimin. saldhigga Cubayda kaliya kuma sugna ciidamada Maraykanka ee sidoo kale waxaa qayb ka mid ah ku sugan ciidamada Ingiriiska iyo kuwa Australia. waxaa kaloo saldhiggan uu hooy u yahay xafiisna ku leh hay-adaha sirdoonada Maraykanka, CIA-da, hay-adda MI6 ee Ingiriiska iyo laanta sirdoon ee dibadda Israa'iil ee Mossad loo yaqaano. isbahaysigaani sirdoon ee u dhexeeya gumaystii hore ee duuga noqday Ingiriiska iyo gumaysaha cusub ayna dhextaal u tahay Israa'iil ayaa jasiiradan Carbeed ama dowladda Qatar waxay ka heleen soo dhaweyn diiran iyo meel amaana oo ay ku fushan karaan danahooda qarsoon ee ka dhanka ah ee wadamada gobolka. sidaas oo ay tahay waxaa jira dowlado kale oo isla gobolka ku yaala oo aad iyo aad ay isugu wanaagsan yihiin Maraykanka iyo Ingiriiska. waxaa ka mid ah Imaaraadka Carabta, halkaas oo mararka qaarkii la sheego in ay u isticmaalaan barnaamijka basaasida gobolka. waxaa la sheegaa saldhiggan inay ku sugan yihiin qiyaastii ilaa 20,000 oo askari oo ka kala socdo dalalka aan soo xusnay, waxaana ay ku hubaysan yihiin intooda badan hubka ay soo saaraan warshadaha difaaca ee dalka Maraykanka. marka laga soo tago saldhiggan inuu hooy u yahay ciidamada Maraykanka iyo laamaha sirdoonka ee saddexdaasi qaybood ee aan soo sheegnay, sidoo kale waxaa la sheegay inuu hooy u yahay kooxda 319aad ee ka tirsan ciidanka cirka ee Maraykanka, kuwaasoo ka kooban diyaaradaha dagaalka caadiga, kuwa fuliya duqeymaha istiraatiijiga ee fogfog iyo diyaaradaha sahanka ama sirdoonka. sidoo kale waxaa ku sugan saldhiggan 100 taangi. ha ka reebin saldhiggan waxaa yaala kaydka hubka ee Maraykanka ee bariga dhexe. saldhiggan waxaa laga maamulaa sida la sheegay howlgallada dayax-gacmeedyada Maraykanka oo u dira hawada. sidaa daraaddeed waxaa la dhihi karayaa waa ka wen yahay saldhig, waxaana lagu tilmaami karayaa dowlad yar oo Maraykanka halkaas uu ku leeyahay. aan u soo laabanno dalka Suuriya, riyada Ruushka ee dalalka Carabta. saldhigga Ruushka uu ku leeyahay gudaha dalka Suuriya waxaa lagu magacaabaa Xamiimiim. waxaa lagu tilmaamaa riyada Ruushka ee dalalka Carabta. markiisii hore wuxuu iska ahaa garoon diyaaradeed, balse markii dambe wuxuu noqday mid ka mid ah saldhigyada ciidamada cirka ee dalkaasi Ruushka ay isticmaalaan, kan ugu weyn uguna ballaaran ee Carabta ku yaallo. muddo kadibna waxa uu ka sii ballaartayba in lagu tilmaamo saldhig. haddaba isna aan isla ogaano maxaa gudihiisa ka socda. wuxuu ku yaalaa gobolka Xamiimiim lagu magacaabo ama meel 4 kilomitir u jirta magaalada Jablah,
sidoo kale wuxuu 19 kilomitir u jiraa deegaanka lagu magacaabo Laadiqiya. sanado badan wuxuu calaamad u ahaa xiriirka Moscow iyo Dimashq, laakiin wixii ka dambeeyay 2015 Moscow waxay go'aansatay inay ka dhigto saldhig aad u weyn oo istiraatiiji ah. xilligaasi Ruushka si cad ayuu ugu dhawaaqay inuu dib ugu soo laabtay bariga dhexe, oo Ruushku ugu dambeyntii markii uu burburay Midowgii Sofiyeed dib ayuu halkan ugu soo laabtay, gaar ahaan markii looga adkaaday dagaalkii qaboobaha. bishii Agoosto 2015 Ruushka wuxuu heshiis la saxiixday maamulka Bashar al-Assad. heshiiskaas oo ciidamada Ruushka u ogolaaday inay isticmaalaan saldhigga Xamiimiin lagu magacaabo xilli walba oo ay doonaan ay isticmaali karayaan, weliba si bilaasha iyo waqti aan la cayimin. intaas kaliya kuma aysan ekaanina, sidoo kale heshiiska waxaa ku jirtay in saraakiisha Ruushka aanan la weydiin karaynin waxa ay kala soo degayaan ama ay ka dhowsanayaan saldhiggan. xitaa Suuriyaanka waxaa ka xariman inay u soo dhawaadaan. xitaa Bashar al-Assad laftiisa ayaa mar halkan lagu bahdilay, sida aad ku soo aragteen bilowgii muuqaalkeena. Bashar al-Assad markaas wuxuu garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynihii Ruushka Vladimir Putin. markii uu soo dhaweeyay xabadka isgeliyeen oo ismarxabeeyeen kadib, Putin ayaa dhaqaaqay. Bashar al-Assad wuxuu damcay in uu ka daba dhaqaaqo, balse askari Raashiyaan ayaa garabka qabanaya, wuxuuna ku leeyahay maya, lama ogola, halkaada taagnaaw inta uu ka baxaya Putin. gudaha saldhiggaana waxaa ka shaqeeya amarka madaxweyne Putin oo kaliya. Putin markii uu la wareegay hogaankii Ruushka lana soo baxay aragti uu mar kale Ruushka uga dhigaya mid aad u weyn oo haybad leh, wuxuu markii ugu horreysay uu soo dharbaaxay dalalka Chechnya, Georgia, haddana Ukraine ayuu doonayaa inuu dharbaaxo oo hore uga tirsanaan jiray dhammaantood Midowgii Sofiyeed. sidoo kale waxaa lagama maarmaan u arkay in Ruushka mar kale uu dib ugu laabto biyaha diiran, waana sababta uu garabka u siiyey maamulka Bashar al-Assad oo qarka u saarnaa burbur. saldhigga Xamiimiinna waxa uu furo u noqday dib u soo laabashadii bariga dhexe oo Ruushka ku soo laabanayay iyo xoojinta xiriirka Moscow ee dalalka bariga dhexe. saldhiggan hadda waa astaan iyo awoodda Ruushka ee ku taala meel ka baxsan ee xuduudihiisa. sidoo kale qofka aanan ogeyn, saldhiggan waa meeshii ugu horreysay ee Putin uu ka aasaasay ciidanka calooshood u shaqaystayaasha ee Wagner loo yaqaano. waa halka ay ku dhasheen, waa halka laga maamulo howlgalladooda Suuriya, Afrika iyo Ukraine. gabagabadiina saldhiggan wuxuu sabab u ahaa in Ruushka uu gobolka uu ka kasbado saaxiibo waaweyn sida Masar, Turkiga, Sacuudiga, Imaaraadka iyo dalal kale oo ku yaala gobolka. adiga maxaad ku kordhin lahayd qaybtan? qaybtoos aragtidaada ku rabaad baad u mahadsantahay. falanqayntii qaybta waa naginta mid lamid intaan ku kulmi doona. nabadgelyo. qodobka haddii aan halkaa kaga gudubno, dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa maxay Ruushka, Iiraan iyo Israa'iil ay hadiyad ahaan weliba si bilaasha ay kaga helayaan dagaalka ka soconaya magaalada Gaza. si gaar ahaaneed ayaan doonayaa warbixintan inaynu kaga hadalno. weerar, duqaymo iyo dagaal aad u culus waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah hadiyadaha ciidda ee dhalashada ee ay sida isdabajooga ah Putin, Khomeini iyo Netanyahu ay cid walba ay kaga heshay dagaalka ka soconaya magaalada Gaza. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysa sidee. warbixintan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa xogta la yaabka leh ee nala socay ilaa iyo dhammaadka. waa warbixin si weyn ay u falanqeeyeen khubaro, ayna baahinayaan qaar ka mid ah warbaahinta sida weyn kaga hadasha arrimaha gobolka. haddii aan ku bilowno, madaxweynaha dalka Ruushka isaga oo ka faa'iidaysanaya waxa ka soconaya magaalada Gaza, wuxuu dib u habeyn weyn ku sameeyey ciidankiisa ka dagaalamaya gudaha dalka Ukraine, halka Ayatullaahi Cali Khomeini uu kasbaday sharciyadii uu kula dagaalami lahaa Israa'iil. Netanyahuna isaga waxa uu ka soo laabtay geeri siyaasadeed. 7 Oktoobar markii weerarka uu dhacay ilaa maantadan aan joogno, sidee ayay saddexdan hogaamiye shakhsiyan uga faa'iidaysteen dagaalka magaalada Gaza, isla markaana dagaalka kulul ee halkaasi ka socdo uu isugu bedelay hadiyada iyaga ay heleen oo qaali ah. saddexda hogaamiye aan ka hadlayno waxaa lagu kala magacaabaa Vladimir Putin, Ayatullaahi Cali Khomeini iyo Benjamin Netanyahu. waxa kulmiya hadda waa in badanaa ay yihiin kuwa ugu badan ee hadalhaynta caalamka haysta iyo midka sababta u noqon doona inuu qarxo dagaalka saddexaad ee dunida. laakiin hadda waxay ka siman yihiin waa in mid walba uu hadiyada qaali uu ka helay Falastiiniyiinta dhiigooda daadanaya. dhinaca kale ayaan rabaa inaan ka eegno. haddii aan ka bilowno madaxweynaha dalka Ruushka, waxaa lagu tilmaamaa saddexdooda kan ugu awooda badan. waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn in Putin dhalashadiisa ay ku beegnay 7 Oktoobar sanadkii 1952. qaybta koowaad ee taariikhdaas maanta waxay dunidu ugu fadhidaa micno aad u weyn. maxaa yeelay maalintii 7 Oktoobar waa maalinkii ay xogaga Xamaas iyo kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ay daaha ka qaadeen howlgalka duufaanta Al-Aqsa.
wixii markaasi ka dambeeyana waxaa isbedelay guud ahaan qariirada dunida. wax walba ayaa isbedelay sida siyaasadda, dhaqaalaha iyo isxulufaysiga. howlgalkii duufaanta al-aqsa ee 7 Oktoobar kuna beegan isla maalintii uu dhashay Putin shaki la'aan waa mid kedis ah oo la yaab noqday. laakiin Putin dhacdadan waxa uu ka helay hadiyad faa'iido badan isaga u leh. wuxuu 2 sano uu ku go'doonsanaa dagaalka Ukraine maadaama reer galbeedka ay ku soo rogeen xayiraado dhaqaale oo dhan walba leh. sidoo kalena ay kaalmo militari iyo mid dhaqaalaba ay la garab taagnaayeen xukuumadda Kiev, taasoo cuuryaamisay in ciidamada ay guulo ay ka gaaraan dagaalka. Putin wuxuu sugayay waqti ku habboon si uu isaga yareeyo culayskii iyo cadaadiskii ka haystay Maraykanka iyo xulafadiisa. hadiyadda qaaliga ah wuxuu ka helay 7 Oktoobar markii muqaawamada weerar ay ku qaadeen daboolka marinka Gaza, yacni deegaanada xoogga lagu haysto oo Israa'iiliyiinta ay ku sugan yihiin. Putin meel cidla ah kagama tegin hadiyadan soo doonatay, wuxuu uga faa'iidaystay sidii ugu habboonayd. marka koowaad wuxuu bilaabay in khudbadihiisa uu ku weeraro Israa'iil iyo falalka wuxuushnimada ay ka dhanka shacabka marinka Gaza. wuxuu dhowr jeer uu ku celiyay inuu si toos ah u cambaaraynayo, halka uu dhinaca kale sii laba jibaaray dagaalka ciidankiisa ay ka wadaan dalka Ukraine. warbixinada ka imaanaya xilligaasi Kiev waxay sheegayeen in ciidamada Ruushka ay laba jibaareen howlgalkooda, isla markaana gacanta ay ku dhigeen dhowr magaalo oo muhiim u ah, taasoo dhabarjab xoogan u geysatay ciidanka Ukraine. dhinaca kalena ciidamada Ukraine waxay la dhibtoonayaan rasaas la'aan, madaafiicdii oo ku yar, zaadkii oo yaraaday weerarkii 7 Oktoobar wixii ka dambeeyay. maxaa yeelay Maraykanka iyo xulafadiisa iyo reer galbeedka taageeradii Kiev ay siin jireen waxay u wareejiyeen dhinaca Israa'iil, waxna taasi sababtay in ciidanka Ukraine ay awoodi waayaan inay isdifaacaan iskana difaacaan weerarka Ruushka kaga imaanayay. marka Ruushka laga soo tago, Iiraan iyo hogaamiyaheeda Khomeini waa kuwa labaad ee ka faa'iidaystay dagaalka magaalada Gaza. Tehran waxay ka faa'iidaysatay weerarkii Israa'iil ay ku soo qaaday qunsuliyadeedii Dimashq, loogana dilay dhowr sargaal oo muhiim ah. markii dambe jawaab ayay weerarkaasi ka bixisay oo gantaale iyo diyaarado dronis ah. balse gantaalada iyo droniska ay Iiraan ay riday sidii la rabay, inkastoo aysan u haleelin bartilmaameedyada muhiimka ah sida garoomada diyaaradaha, magaalooyinka muhiimka sida Tel Aviv, Haifa iyo Eilat. haddana waxay ku dhaceen saldhigyo muhiim ah, waxaana bannaanka ay keentay in Iiraan ay awood u leedahay in ay ka jawaabto weerar kasta oo lagu soo qaado. muddo dheer waxay ku hanjabaysay in Israa'iil weerar ay ku qaadi doonto, kaasoo horseedi doona inay qariirada bariga dhexe ay ka masaxaan Israa'iil. laakiin wixii dhacay taasi cagsigeeda, inkastoo ay ahaayeen awoodeeda bannaanka ayay Iiraan la soo baxday, waxaana ay muujisay in marnaba aan la taaban karin shaarbaheeda. kadib weerarkaasi Tehran ay ku qaaday Israa'iil, Ayatollah Ali Khomeini wuxuu dhexda ka galay mushkilad. ciidamadii iyo awooddii muddada dheer ay ku faanayeen Israa'iiliyiintana su'aal ayuu duldhigay. sidoo kale wuxuu laba jibaaray awoodihii kala duwanaa ee xoogagiisii ka dagaalamaya gobolka. 19 bishan Abriil sii dhammaanaysa waxay ku beegneyd maalinkii uu dhashay Ayatollah Ali Khomeini. wuxuu helay hadiyad kedis ah oo uusan sii qorshaysan, taasi oo ahayd in Israa'iil ay go'aansatay in jawaab ay ka bixiso weerarkii gantaalada. 3 ka mid ah diyaaradaha dagaalka casriga F-35 ee Israa'iil ayaa ka soo duulay gudaha Israa'iil, waxayna duqeymo ay ka geysteen bartamaha Iiraan. inkastoo weerarkii Israa'iil la sheego inay ahaayeen diyaarado dronis ah, haddana duqeymahaas waxaa la rumaysan yahay in ay ku dhaceen gobolka Asfahan lagu magacaabo, waxaana loogu talagalay in lagu bartilmaameysado xarumaha nuclearka ee dowladda Iiraan, gaar ahaan deegaanka Natanz ama Natanz lagu magacaabo. sidoo kale Israa'iil waxay Iiraan u adeegsatay diyaarado dronis oo yaryar, waxaa lagu qaaday saldhigyada militariga ee ciidamada ilaalada kacaanka ee gobolka Asfahan ay ku leeyihiin, waxaana halkaasi lagu burburiyay nidaam difaaceed. inkastoo Iiraan aysan sheegan in weerar lagu soo qaaday lana burburiyay nidaam difaaceedkii hawada ee gobolkaas, laakiin Khomeini wuxuu yaqiinsaday wixii markaasi ka dambeeyay weerarkaas inuu ahaa hadiyad uga timid Israa'iil, laguna soo beegay dhalashadiisa. balse marka dhinaca kale laga eego weerarka rogaal celinta Israa'iil, Khomeini wuxuu isku sawiray inuu yahay hogaamiyaha kaliya ee gobolka ee hortaagan loolan militarina kula jira Israa'iil. Iiraan sidoo kale waxay noqotay dowladda kaliya ee bariga dhexe ku taalla ee wajihi karaysay Israa'iil. wixii markaasi ka dambeeyay hadiyadaas ayay heleen, waxaana iska soo dabadhacay warar hoose oo la xiriiray in Maraykanka uu farageliyay arrintan, ee Iiraan la barbariyay, si kasta loo tuugay, wax kastana la doonayay in looga bedasho. markii halkaas marayso, si kooban weerarkii Israa'iil ee lagu soo beegay maalinta dhalashada Khomeini, hadiyadda uu helay waxaa lagu tilmaami karayaa waa in Maraykanka uu ballan qaaday in Iiraan ay sii wadato barnaamijkeeda nuclearka, taasi beddelkeedana ay ka fogaato dagaal ay la gasho Israa'iil. Putin iyo Khomeini markaa halkaas aan uga soo gudubno. dhigyacabka hogaamiyaha ee gumaystaha Israa'iil ee Netanyahu waa ninka saddexaad ee dagaalkan ka faa'iiday, laakiin Putin iyo Khomeini wuxuu uga duwan yahay
hadiyadaasi kuma soo begin maalintiisii dhalashada. haddana sidaas oo ay tahay waxa uu helay hadiyad weyn oo badbaadisay siyaasadiisii, gaar ahaan kor u kaca xiisada kala dhexaysa Iiraan waxay dhinaca kale u rogtay mowqifkiisii siyaasadeed ee dhinaca dalalka reer galbeedka Israa'iil taageera. ka hor weerarkii Iiraan, Netanyahu wuxuu dhex maquuranaya dhibaato siyaasadeed oo aad u weyn oo dadkii la dilay iyo wax kasta lagu haystay, laakiin Iiraan markii ay jawaabtay faa'iido yar ayuu helay. caalamiyan xitaa xulafada ugu dhow ee Maraykanka ayaa ku cadaadinaysay inuu soo gabagabeeyo dagaalka magaalada Gaza. sidoo kalena waxaa laga hor istaagay inuu weerar ku qaado Rafax oo ay ku nool yihiin 2 milyan oo Falastiiniyiin ah oo isaga soo qaxay magaalada Gaza. marka cadaadiskaas tirada badan waxa uu helay ugu yaraan meel uu xal ugu heli karayo ee dhinaca gudaha Israa'iil. Netanyahu dhibaato ayuu kala kulmay qaar ka mid ah xubnaha xisbigiisa, kuwaasoo si gaar ahaaneed uga cadaadinayay xal u helidda maxaabiista Xamaas weli gacanta ay ku hayaan iyo inuu soo dedejiyo weerarka Rafax. balse cadaadiskaas oo dhan wuxuu ka degay kadib weerarkii Iiraan, wuxuuna fariimo ka helay inta badan dalalka reer galbeedka iyo Biden, kuwaasoo u ballanqaaday mar walba inay garab taagan yihiin Israa'iil. haddaba Netanyahu wuxuu dib u soo ceshaday kalsoonidiisii saaxiibadiisii reer galbeedka, waxaana ay ahayd wax lasii qorsheeyay in Iiraan la weeraro. inay sidan usii jawaabayso waa la ogaa, kadibna natiijadan ayaa ahayd mid la wada sugayay. soo lama dhihi kara marka saddexdooda hadiyad ayay ka heleen dhanka siyaasadda marka la eego dagaalka magaalada Gaza. waxaad ku kordhin lahayd qaybta hoos aragtidaada ku reeb, waad mahadsan tahay. falanqayntii guud ahaan ee qaybtan waa naga intaa, mid lamid intaan ku kulmi doona nabadgelyo.